Waxaan boqor nugood media share dhaha like saara follow dhaha gaarsiiya fadlan asxaabta aan wali u gaalin boqor nugood media fadlan dabooqta youtube karo nugood media soo heshaan wax badan oo xog halka aan soo gelino maanta waxaan warbixintayna aan ku soo qaadan doonaa askar doonyo oo ah askari Soomaaliyeed oo 43 sano u xiray xabashida Itoobiya wuxuu dalkii u dagaalamay maanta wuxuu soo laabtay dhowr iyo 10 gobol iyo dhowr iyo 10 maamul oo ka jira dalkii mid ahaa oo jamhuuriyadda dimuqraadiga la dhihi jiray xilligaas dagaal ba'an u galay askar doonyo wuxuu joogaa Hargeysa askar doonyo wuxuu ka mid yahay ciidamadii jamhuuriyadda dimuqraadiga awoodda badnaa ee Afrika ahay waxaana ay dawladda Soomaaliya xilligaas wadanka koowaad ee ugu awoodda badan geeska Afrika xilligii Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa xilligaas ciidamadii xoogga jamhuuriyadda Soomaaliya shiriyay marow ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya ay muran soo kala dhex galeen sugay ra'iisul wasaaraha ayaa ku murmay dalka ogaadeynaya in Soomaaliya si rasmi ah loogu soo celi doono maadaama gumaysigii ibal gacanta u galay Itoobiya laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa diiday dhulkaas inuu leeyahay Siyaad Barre ayaa dagaal kama marmaan ay noqotay arrintiis wuxuuna si degdeg ah la qaatay ciidamadii jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya oo xilligaas ciidamo awood iyo tayaal ahaa wuxuuna u sheegay in dagaal ba'an la geli doono Itoobiya sidaan wada ognahay ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliya oo aad u qalabeysnay oo aan taageero aan ka helin wadan kale balse iyagu taageero isku ahay waxay qabsadeen dhulka Itoobiya 3 meelood meel kamid ah iyagoo caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa u tagay 30 mayl oo kaliya ah 30 kiiloomitir oo kaliya ah xilligaas Soomaaliya waxa loogu baaqay madaxweyne Siyaad Barre inuu dhammaan ciidamadiisa ka saaro Addis Ababa duleedkeeda uu ku celiyo oo ku okaado ku doonay ogaadeynaya oo mar hore soo dhaafay balse Siyaad Barre wuxuu damacsanay inuu Addis Ababa qabsayo xilligaas Itoobiya waxay u habar wacatay gaaladii awoodda lahaay waxaana soo gudbay Ruushka ciidamadii ugu badan ku soo daabulay Addis Ababa xilligaas waxa dawladda Soomaaliya jibay Ruushka dagaal ba'an oo Ruushku 15 beri ayuu ku taqalusay ciidamadii Soomaaliya waxaana dib loogu soo celiyay dhammaan dhulkii Soomaaliya askar doonyo wuxuu ka mid yahay ciidamadii jamhuuriyadda dimuqraadiga xilligaas dagaalku ba'an la galay Itoobiya 43 sano kadib waxa maanta dalka lagu soo celiyay oo ku soo laabtay Hargeysa sugaa 43 sano xabsida Itoobiya xabsi maalin loogu bedelay bas dalku u dagaalamay oo xurahay oo calan wata oo hal ciidan wato awoodda walahay wuxuu soo laabay dhowr iyo 10 calan iyo dhowr iyo 10 maamul askar doonyo wuxuu xilligaas ka tagay xaas iyo labada cunug way dhintay xaaskina waxa dumay walaalkii oo hadda u leh dhowr iyo 10 cunug ninkii walaalkii ahay askar doonyo wuxuu mudan maamuus iyo sharaf oo ku mudan madaxda qaranka jamhuuriyadda federaalka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee hadda xilliga haysta wuxuuna mudan dhiirigelin iyo xil muhiim ah oo qalmo askar doonyo wuxuu ahaa askari Soomaaliyeed ay ka go'an tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed askar doonyo wali muu hadlin warbaahinta muu la hadlin balse hadalkiisa ugu horeeya oo uu sheego waxa halkan ku soo daabici doona boqor nugood media saxaabteena sharafta la leeg dhaha follow dhaha si share gareeya fadlan dabooqda youtube karo nugood media saanu helno say noo dhiirigeliyeen asxaabta ku xiran bugaan saanu kuna ugu dhiirano in dhammaan aan ku soo daawacno wixii xog ah oo dalka ka jira mahadsanidin asxaabteena sharafta leh mahadsanidin